السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Pro Production Challenge Everything. magacaygu waa Cabdiwali Maxamed. haddaba maanta muuqaalkeena waxaan ku qaadan doonaa sidee ayaan ku soo download gareysan karnaa WinRAR, sidoo kalena aan ku shuban karnaa operating systemka haddii uu ahaan lahaa Windows 10 ama Windows 11. sidoo kale sidee ayaan ugu bixin karaa marka faylasha qaar ay ii wada noqdaan wada WinRAR oo kale, because of inta badan sida la ogyahay WinRAR-ka markii aad computerkaaga ku shubato waxaa arkaysaa faylasha oo dhan, waxaa arkaysaa waxyaalo isduldul saaran oo kale inay yihiin. iconkaas ayaa waxaa loo yaqaanaa WinRAR. sidoo kale iconkan kalena waxaa loo yaqaanaa zip. marka zipka ayaa wuxuu u kala baxaa dhowr nooc. 7 zip aa jiro, zip caadi aa jiro, zipin aa jiro, way badan yihiin. laakiinse WinRAR-ka waa uu ka duwan yahay faylashiisa. WinRAR-ka kaliya waxaa furi karo faylka lagu magacaabo 7 zip. 7 zipna waxa uu furi karaa WinRAR, laakiin zipka caadiga operating systemka ma isticmaali karo, ma extract gareyn karo WinRAR-ka oo kale. haddaba marka muuqaalka aad daawanaysid hoostiisa ayuu yaalaa WinRAR-ka. markii aad soo degsato halkan waxaa inoo yaalo WinRAR, waad arkaysaa shaashadeena desktopkiisa ayuu yaalaa. sida caadadeena ahayd marka ugu horreyn waxaad u baahan tahay inta aadan shaqadan bilaabin in antiviruska oo computerka uu ku yimaado inaad disable ka dhigato si shaqadaada ay kugu sahlanaato. haddaba si antiviruskeena aan u afgareyna inta shaqada inoo wada si aan carqalad ula kulmin, waxaan u baahanahay sheyada on inoo ah inaan off ka dhigno ama aan disable gareyno. ugu horreyn waxaad tegaysaa meesha system try-ga, kadibna meeshan ayaa waxaa ka raadinaysaa antiviruska kuugu jiro. double click ayaad siinaysaa, waxaa arkaysaa inuu inoo soo kacayo window defenderka. gacanteena bidix meeshan waxaa inoogu qoran meel ay inoogu qoran tahay virus and threat protection, ama meesha halkaana ayaad kili ku siin kartaa. waxaa inoo soo kacayo isla dialog boxkiisa ayaa inoo furmayo. meeshan waxaa ka raadinaynaa meel ay inoogu qoran tahay manage setting. kiliga ayaad ku siinaysaa, waxaa inoo soo baxaya download boxkan. kuwaan oo dhan ayaan waxaan ka wada dhigaynaa marka off ayaan ka wada dhigaynaa. hooshayna markay inoo dhamaato ayaan on ka dhiganaynaa. intaan afartaba markii aan off ka wada dhigno kadibna antiviruskii minimize ayaan leenahay. close waad dhigi kartaa, hadhow ayuu dib kugu soo kacaya, laakiin isku day inaan minimize gareyso because of waxaan rabnaa always inaan ilaalino waqtiga. haddaba waxaa inoo yaala desktopka faylkii aan soo download gareysana. adiga meesha aad ku download gareyso, balse aniga wuxuu inoo yaalaa desktopka. right click ayaad leedahay, extract all ayaad leedahay sida muuqaaladeena hore aad ugu daabatay, kadibna extract all ayaad leedahay. automatically wuu inoo extract gareeyay. waxaa arkaysaa faylka halkan inoo yaalo. double click ayaan siinaynaa, waxaa arkaynaa inuu inoo furmaayo. WinRAR-ka kale ayaan sii furaynaa, waxaa arkaynaa WinRAR 5.9.1. way dhici kartaa update ka dambeeyay inuu jiro, balse aniga midkan I believe always. marka mar walbana waxa idin soo gudbinayo waa waxaan aniga ku kalsoonahay. marka WinRAR-ka ayaan double click siinayaa. halkan waxaa inoogu qoran WinRAR x64 bit iyo WinRAR x86 bit. haddaba waa inaa fahantaa operating systemka aad isticmaalayso ma 64 bit mise 32 bit. sidee ayaan ku ogaan karaa operating systemkan isticmaalayo inuu 64 bit yahay iyo inuu 32 bit yahay? si aan u ogaano marka calaamadda start menu-ga ayaad right click leedahay, kadibna qaybta kore waxaa ka raadinaysaa settingska. haddii aad isticmaalayso Windows 11 ama Windows 10 labadaba waa isku mid. click ayaad ku siinaysaa, waxaa kuu soo baxayo specificationka computerka oo idil. anaga marka muhiimadeena waxa ay tahay inaan ka fiirino meeshan ay inoogu qoran tahay system type. system type-ka ayaa fiirinaysaa, hortiisa waxaa ku arkaysaa inuu yahay systemkeena 64 bit. inta badan hadda waxa la isticmaalana waa 64 bit. kadibna close ayaad leedahay. okay, maxaan sameynaynaa marka? anaga hadda waxaan ku shubanaynaa midka ah 64 bitka. double click ayaad siinaysaa, sidoo kale waxaa arkaysaa inuu inoo samaysan yahay folder iyo setup iyo zipka oo ku dhex jiro midka batchka ama craga qofba sidoo yaqaano. batchka ayaa right click leenahay ama craga extract ayaan leenahay, kadibna extract gareey ayaan leenahay. waynoo extract gareeye. okay, halkan ayaan waxaan leenahay marka double click. wuxuu ina weydiinayaa user account controlka, yes ayaan leenahay, kadibna install ayaan leenahay. waa fail aad u yar waay, laakiin shaqada uu qabanayo you can imagine. muuqaalo dhammaystiran
muuqaalada soo socdo ayaan ka soo samayn doonaa qaabka loo isticmaalo iyo sida uu shaqeeyo balse ugu horreyn waxaan rabnaa muuqaalkan inaan setup ya free aan ugu talagalnay asxaabta inugu xiran channelkeena inay ka dhargaan softwareada ugu muhiimsan ee loo baahan yahay inuu computerkaaga uu ku shubnaado marka toggle all ayaan leenahay ama dhammaantooda inoo wada saar start menuga tigta inoo saar kana tigta inoo saar kan desktopka dhow saare kartaa laakiin I don't care asaaba automatic isku soo furayaba marka kan ayaan okay leenahay automatically waxa arkaysaa dialog boxkan inuu inoo keenayo done ayaan leeyahay automatically waxa arkaysaa marka folder waxa inoo soo furmaayo WinRAR-ka inuu programkiiska start menuga uu ku jiro marka midkan qaybta ugu hooseeyo ayaad right click leedahay kadibna waxa leedahay open file location waxa casharadeen hore aan soo qaadanay waxyaalaha aan ku sharxayna waxa kamid ahaa in file locationka uu ka saacidayo inaadan faylka wada dheer aadan u soo marin marka qaybtan kore waxa lagu magacaabaa link ama path meesha uu yaalo ayaa lagu magacaabaa marka waxaan naga rabaa linkiga ama pathka inaan click siiyo waa arkaysaa wuxuu yaalaa si program files WinRAR bla 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 heblo waxa soo dhan right click ayaad leedahay copy ayaad leedahay copy markii aan dhahno kadibna waxaan tegaynaa faylkii aan soo degsanay oo aan setup ahaan aan u isticmaalayna waan extract gareena haday waxa xasuusataa calaamadan inoo ahaa zip marka xogar confused ayaa halkan ku qaadaysaa laakiin aniga raba inaan ku sharxay insha Allah waad fahmi doontaa karaagan waa midkii aan extract gareenay hadii aad xasuusato double click ayaan siiyay calaamad kraaga faylasha noocan u samaysan yahay faylka la soo jibiyay ama faylka lagu jibin lahaaba right click ayaan leenahay kadibna halkan waxa ka dooraneynaa run as administrator click ayaan ku siineynaa hadaba marka codka ayaan si dhaqsi aan ku xireynaa because of waxaan diideynaa inuu codkeena iyo wixii oo dhan conflict ay isku noqdaan run ayaan leeyahay kadib su'aal uu ii keenayaa yes ayaan leeyahay okay codkii waa aan xiray waxa inoo soo kacay karaagi meeshan waxa ku qoran hadda halkan fiirisid waxa ku qoran generate click ayaan ku siineynaa kadib wuxuu ku leeyahay generate kan u tilmaam faylka aad ku shubatay computerkaaga ee WinRAR-ka booska uu ka yaalo marka ma taqaanaa ayuu ku leeyahay oo hore ma u socdaa yes ayaan leeyahay waan aqaanaa ila link pathkii aan soo qaadanay oo halkan aan ka soo qaadanay ayaan wataa right click copy ayaan soo dhahay hadda xasuusato qaybtan ayaan imaaday marka qaybtan kore ee link pathka aan soo qaaday ayaan qaybtan kore dhigaya halkan ma dhigmaayo inta ha dhigin link pathka inta looguma talagelin ha dhigin qaybtan kore ee aad ku arkaysid meeshan title barka qaybta kore ee link pathka ayaa right click leedahay ama hadduu qoraal sidaan oo kale ugu yaalo delete garay faylkii ama pathkii aad soo qaadatay right click dheh halkan waxa ku tiraahdaa path waa arkaysaa si program files WinRARs kadibna okay ayaa leedahay okay markii aad tiraadid sida uu yahay wax kale ma taabanaysid kaliya waxa leedahay save kan waan iska xireynaa okay wuxuu idhaay marka pathkaaga successfully waa la fuliyay okay ayaa leenahay kana okay ayaa leenahay hadaba marka halkan ayaan rabnaa inaan dib isugu soo laabano waxaan u maleynaa halkan waxa inoo yaalo Windows 10 activation kiisa halkan waxa inoo yaala faylkii zipka ahaa ee aad soo degsatay hadaba aad ay u dhib badan tahay hadaan double click siiyo waxa arkaysaa WinRAR-ka hore iga furmaayo marka si aad waxyaalahan oo dhan aad u saxdo marka waxaad u baahan tahay inaad u tilmaanto computerkaaga wixii calaamad zip ah inuu zip karo wixii RAR ah inuu RAR karo wixii hebelooba inuu hebeloo karo okay hadda faylkan bilowga aan soo dejinay wuxuu u diyaarsanaa 7 zip zip ayuu u diyaarsanaa right click ayaan leenahay properties ayaan leedahay halkan waxa ku arkaysaa in faylkan uu u diyaarsanaa zip waa arkaysaa faylkan aan koodi soo dejinay wuxuu u diyaarsanaa zip balse iconka uu wato ayaa waxa uu yahay WinRAR saas darteeda marka faylkan waxaan rabaa inaan ka dhex aqoonsado inuusan WinRAR ahayn oo uu yahay zip haddii faylkan WinRAR uu yahay calaamada WinRAR-ka ha koro faylkan haddii uu yahay zip calaamada zipka ha koro qaabkaas ayaan rabnaa marka inaan u kala shaandeyno hadaba marka qaybtan waa zipka caadiga ee aad taqaanay halkan waxa ku arkaysaa change oo ah bedel click ayaan ku siinayaa kadibna waxaan dooranayaa file explorer-ka okay ayaan leeyahay kadibna okay ayaan leeyahay automatically waxa arkaysaa hadda kadib wixii zip ah zip ayuu u yaqaanaa fiiri kanna waa zip ayuu u yaqaanaa
kan haddii aan sidoo kale fiirino zip u yaqaanaa. haddaba marka win micnaha faylka raarka ah sida u aqoonsan karaa. faylkan waa kii hadaay ah kan kore ka extract gareyna haddii aad xasuusato. right click ayaan leeyahay, asiga ayaan waxaan rabaa inaan dhaho ka dhig raar ka dhig ayaan leeyahay. haddaba raar markii aan ka dhig waa arkaysaa raar ayuu noqonayaa. automatically waxaa arkaysaa faylkan inuu yahay raar. kan waxaa arkaysaa calaamadda zipka inuu yahay. haddaba kan ayaa waxaan ka dhigayaa zip. fiiri halkan ayaan furayaa send to zip ayaan leeyahay. automatically waxaa arkaysaa asigana zip. hadda kadib waxaad ogaataa marka zip marka uu yahay zip ayuu kuu noqonaya. laakiin haddii faylashaada isku dhex yaacsan yahay isku day inaad saxdo. haddii aad xogar ku wareerto waxbaa rabaa inaan ku fahamsiiyo. halkan waxaa inoo yaala raar, halkan waxaa inoo yaala zip. waxaa dhici karto dhammaan faylashaada oo dhan inay wada yihiin sidan. aan isla fahanno. dhammaan waxaa dhici karta faylashaada oo dhan marka laga bixiyo halkan inoo geli. dhammaan faylashaada inay sidan yihiin oo aadan kala aqoonin maxaa zip ah maxaa raar ah. haddaba inaad zipka iyo raarka aad kala socdo waxay kuu sahlaysaa faylasha aad rabto inaad isticmaasho inaad ka dhex aqoonsato midka zipka ah iyo midka raarka ah. haddaba marka faylkii aan ugu shakisanahay inuu raar yahay ama inuu zip yahay ayaa rabaa marka inaan kombiyuutarka u tilmaamo faylkan haddii uu hadda kadib soo galo ama horay ugu jiraba inuu raar yahay u aqoonsanow. faylkan kale hadduu zip yahay zip u aqoonsanow. haddaba faylasha aan raba inaan wax ka bedelo ayaan dul tegayaa. right click ayaan leeyahay, properties ayaan leeyahay. faylka aan raba inuu zip ama raar aan u tilmaamo. faylkan wuxuu u yaqaanaa raar. raarka sidiisa ayaan ku dhaafaynaa. okay ayaan leenahay. waxaan raadinaynaa midkan kale asigana right click properties ayaan leenahay. okay midkan waxaa ku arkaysaa inuu yahay zip. si fiican ila fahan. faylkan zipka ah calaamadda uu wato waa calaamadda winraarka. janji ayaan leeyahay. windowska calaamadiisa waa kana ama zipka calaamadda loo yaqaano waa kaasa oo hadhow shay yar oo aad u malaynaysid sansiyeriga oo kale ayuu soo gelayaa. okay ayaan leeyahay. kana okay ayaan leeyahay. waa arkaysaa hadda marka hadda kadib fayl zip haddaan soo geliyo zip ayuun u aqoonsanaanayaa. fayl raar haddaan soo geliyana raar ayuu u aqoonsanaanayaa. haddaba marka waxaa baratay ugu horeyn inaad faylkii la soo degato kadibna antiviruskii aad xirto kadibna aad ku shubato kadibna karaagii aad fahanto sidoo kalena aad kala shaandheyso. maxaa inoo dhiman antiviruskii haddii aan off gareynay inaan on ka dhigno. antiviruskii way inoo minimize gareysnaa waa kicinaynaa kabacdi dhammaantooda on ayaan ka wada dhigaynaa. waad arkaysaa dhammaantooda waxaan ka wada dhigay on ayaan ka wada dhigay. marka hadda kadibna cabsi kama qabo. saas darteeda marka maanta casharkeena wuxuu ku saabsanahay sidee winraar aad ku heli kartaa. muuqaalka aad daawanaysid hoostiisa ayuu yaallaa. ugu dambeyn wixii aad raadinaysay waa aad heshay. fadlan waxaanu kaa codsanaynaa inaa inoo subscribe garayso channelka sidoo kale aad inoo like garayso muuqaalkan iyo muuqaalada kale. hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashir walba ayaan markaas soo gelino. anigu waxaan ahay qofkii ku baray adiguna waxaa noqotay qofkii ka faa'iidaystay. waa anigoo ah Cabdiweli Maxamed. waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo iyo cashirkeena xiga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.